qodobka labaad waxaan aad u soo dhaweynayaa ninkii loolan jiray kabtan caduun oo xorriyadiisa helay. kabtan caduun aqoon anigu uma lihi runtii, wiil yar oo indheer garad ah oo dad Soomaaliyeed badan ay ku xidhan yihiin, hogaamiye asal ah baan anagu aqoonsanahay. waxay odhan doonaan wuxuu taageeraa waqooyi bari. xasan sheekh bay waxay igu yiraahdaan waxa u taageertaa wuxuu taageeray waqooyi bari. siyaasadda in lagu danaysto oo qadar laga raadsado ama markay reerkiina u wanaagsan tahay la taageero Soomaalida caan ku ah. anigu laakiin waxaan wax ku dhisaa aragtidayda wax ka sarreeya reernimada. example, haddii marka aad ka mid tahay kuwa wax ku dhisa aragtida gaaban oo kabtan cadow waqooyi bari buu taageeraa, way ku anfacaysaa. haddaad ka mid tahay kuwa aniga ila fikirka ana way ku anfacaysaa. wiilkaa yeeray waa hogaamiye asal ah, waana siyaasiga waqtigan xaadirka ah ay u baahan tahay Puntland. waa la xidhay, waa la soo daayay. cidda gacanta ka geystay soo dayntiisa waan soo dhaweynayaa. waxaan rabaa marka inaan ku idhaahdo kabtan caduun iyo inta la fikirka ah, waxaad iska ilaalisaan cayda shakhsiga ah. qofka ha ku tuhuminina, hana ku tuuranina caydan ereyada la caadaystay oo ay ka mid tahay in qofka xaggiisa hore iyo xaggiisa dambe la tilmaamo. akhlaaqda luuqadda Soomaaliga ka mid ma aha, luuqadda dhaqanka Soomaaliyeedna ka mid ma aha. islaamkuna sidaa uma hadlo. laakiin aragtidaadii dheerayd ee aad ku hagaysay dadkaaga iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ha ka tanaasulin. qolada maamulkana waxaan rabaa inaan ku idhaahdo oo ugu celiyo, 15 sano wixii ka horreeyay wiilka Puntlandarka ah ee u dhashay deegaanadaas wuxuu aaminsanaa haddii la yidhaahdo hogaamiyaha Soomaalidu waa kee isaga inuu yahay. hankaas bay lahaayeen. higsigaasna wuxuu ahaa ilaa maantii ay xornimada Soomaalidu qaadatay mid lagu rabeeyay. xagee laakiin maanta marayaan? maanta waxay marayaan inay gooni-goostada u heesaan dad ka aragti liita. sideedaba waxaa lagu daydaa oo la hiigsadaa qof kaa horeeya baa la hiigsadaa. laakiin qof garasho ahaan iyo fikir ahaan kaa hooseeyo lagumana daydo, lamana koobiyeeyo. waxba anigu ka sheegi maayo cigaal siyaasi Soomaaliyeed oo mudakara buu ahaa. deni baa yidhi isagaan ku daydaa. laakiin Juxa wuxuu inoo sheegay inay koobiyeeyaan. dadka dhibsanaya Juxa inaan hadal hayo, aniga iyo Juxa hadduu maxkamad doortana waa isla aadaynaa. haddaan is aragnana dhaqankii Soomaalida meesha ka saari mayno. cid iga fujin kartaan ninkan ma jirto. maxaa yeelay hore waxaan idhi ninkani waa shisheey, waa cadow sokeeya ah. in badanna waxaan rabay inaan indhaha ka qabsado, laakiin cid anfaci karaysa oo ninkaas qarin karaysa ma jirto. waxa isoo gaadhaya cabashooyin ereyga la yidhaahdo han qaranna male, han qabiilna male baan rabaa markii saddexaad inaan sharaxo. ereygaas aad looga cawday. ereyga maxaan ula jeedaa? wararta anigu 2023 social media ma soo gelin. 2023 wixii ka horreeyay intaan social media imana fadhi ku diriradan isku haysanay nimankan iyaga iyo cidda u dooda. intii social media jirana halkan baan soo fadhiyo nimanka waxaan isku haysanay waxay ahayd war qarannimada Soomaaliya sidee ula dhaqmaysaan? maxaanu ka faa'iidnay waxaan federaalka la yiraahdo Soomaaliya aqoorta u geliseen? magaalada Garowe la yiraahdo oo anigu aan aaminsanahay inay tahay faa'iidada kaliya ee Puntland laga helay inay dhisanto oo ay ballaarato oo ay wadooyin yeelato. anoo uga mahadcelinaya dhammaan maayaradii gacanta ka geystay. maxaa magaaladan u keeni weydeen inay caasimadda Soomaaliya noqoto? dadka maxaa Muqdisho looga hayaa? intaan noolaa maalin baan Faroole ammaanay. waa maalintii uu su'aal geliyay caasimadnimada Muqdisho. maxaa yeelay anigu waxaan qabay federaal bay nimankani keeneen, hooyada federaalkay la baxeen, waa inay ku gorgortamaan caasimadda, waa inay keenaan. han qaran iyo han qabiil midna male. marka xagee baan ka keenay? nimankan waxaa loo dhiibay 5 gobol iyo degmada Buuhoodle. Cabdullaahi Yuusuf Allah u naxariistay maalintii uu wadanka ka tagay oo uu koonfur aadayay oo priority-ga uu saarayay inuu madaxweyne Soomaaliyeed noqdo. wargeyska la yiraahdo Jamhuuriyadda Hargeysa ka soo baxa dhowr goor horena waan sheegay
kaliya wuxuu ka faalloon jiray ciidamada daraawiishta ee Puntland 24 saac ciidan sahaydiisii iyo saanadiisii iyo tababarkiisii qaba oo dagaal ku jiri kara ciidanka daraawiishta Puntland Cabdullaahi Yusuf baa jiroon jiray shan gobol oo Soomaaliya ka mid ah oo aan aragteen inta baaxadoodu leegtahay ee nimanka loo dhiibay dastuurkana waxa loogu qoray inay Soomaaliya raadinteeda bays u tahay ummadda Soomaaliyeedna waa ka faa'iiday waa taan lahaa Puntland waa daday dawlad iyo sharaf deeqda dunjigeedba Soomaali weyn dacal kastay joogto waa darin u taalaya ardaa lagu daryeelaa nin waliba halkuu raba ka dega kuna dekeeya danta qaranka shay aan ahayn uma dadaalaan ha yeeshee gob daacada mar baa loo dhigaa dabin maantana anaa dood ka qaba eed loo diray mar kale waanigii lahaa dadweynaha mar kale waataan lahaa hadda ma hayee dadka reer Puntland oo hal baan idin dareensiin dalkan dawladnimo looma rabo nabadna loo diid waxaa dabin la qoolay iyo xarkaha la isu wada daashay dagaalada sokeeye iyo xasarad gaasta lagu daadsho dabcigooda weeyo abid kama badaalaan oo damjideed kuwii doortay baa daanadaa dhigay waana dani ninka doortay nimankii shanta gobol loo dhiibay iyo degmada Buuhooda la yiraahdo waxay dhisan kari waayeen wixii Cabdullaahi ka dambeeyay ciidan waxay samaysan kari waayeen talo waxay midaysan kari waayeen bulshadoodii waxay sugi waayeen ammaankoodii maamul yar oo cunsuri ah oo goosada ayaa dhulkoodii inta uu soo qabsaday oo laba gobol tog dheer iyo weeyaan iyo waqooyi galbeed waa la leeyahay tog dheerna waa la leeyahay sanaagna waa la leeyahay nimanka Soomaaliland la baxay goostada waqooyi galbeed ciisiga dibisay baa la degan oo gabalay ka soo gala waad ogtihiin tog dheerna inta badan waa waqooyi bari sanaag inta badanna waa taqaan dadka degan kuwaasa intay dadkoodii askaraysteen oo dhulkoodii soo qabsadeen ayay waxay u bixiyeen maamulka taagta daran halka waxa ka baxay marka wax la yiraahdo inay han qabiil yeeshaan maxaa yeelay hadday mabaadi qabiilada ilaalinayaan dadkan loo dhiibay ayay dhisan lahaayeen halka waxa ka baxay marka wax la yiraahdo han qabiil hankii qaranka ku soo haray ilaahay ha u naxariisto Cabdullaahi Yusuf wuu ka dhabeeyay wixii loo dhaariyay Soomaaliya in dawladeedii mar labaad salka loo dhigo wadiiqadu doona Hawmare Cabdullaahi baa ka dhabeeyay maxaa ka dambeeyay marka Cabdullaahi waxaynu ognahay sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenkii labaad ee baarlamaanka federaalka 200,000 oo dekada Boosaaso laga qaadaa lagu handagareyn jiray dawladda Soomaaliya maxaa ka dambeeyay Cabdullaahi marka waxa ka dambeeyay dawlad kasta oo timaada in daawaha lagu socodsiiyo waxa ka dambeeyay madaxweyne kasta oo fiila Soomaaliya soo gala in dagaal la galo waxa ka dambeeyay madaxweyne kasta oo xilka ka diga in garowo lagu yeedho oo la soo dhaweys kii talada hayeen la iska fogeeyo example waxa idinku filan farmaajo waa garanaysaan culimada Puntland waxay yiraahdeen safarkii uu ka bilaabay gaalkacayo oo uu Boosaaso ku tagay dadka ugu badan oo taageeray ninkaas Puntland bay ahaayeen culimadu waxay yiraahdeen wallahi al-cadiim waxaanu ka qunuudin jirnay masaajidada ilaahay ninka inuu nabadgeliyo sida ummaddu ay ugu soo baxday oo ay u qaabishay oo soo dhaweysay yaani ammaankiisii baa wuxuu noqday waxaan la sugi karin makhluuq ninkii noocaas ahaa ee rajada badan ummadda Soomaaliyeed ka qabtay hadafka ugu weynna laba qodob ah farmaajo wax lagu taageeray adigu hadda heer ku taageertay ku taala hadafka ugu weyn wuxuu ahaa hanka qofka Soomaaliga baa kor u kacay waxaan xasuustaa meesha la yiraahdo gobolka la yiraahdo city oo isku dilayeen Cafarta iyo Soomaalidu Cafarta waxay lahayn harab bana leeyahay wiil kasta oo 20 jira oo Soomaaliya oo secondary dhameeyana rajada uu qaba waxa ahayd ciidanka xooga dalka inuu qorto arimad ama waran ama duhran ugal limaada wuxuu arkayay Kenya oo ka barooranaysa Nairobi mucaaradka oo leh 900 baylood soo tababartay iyo ku soo duulayaan Ethiopia oo baal laga guriyay bay arkayeen hanka qofka Soomaaliga ama Jigjiga ha joogo ama Wajeer ha joogo ama Hargeysa ha joogo ama Boosaaso ha joogo ama Muqdisho ha joogo korbu u socday
yaa burburiyey hadafkayga ugu weyn waana ka meesha dhaafay bulbul waxaan rabaa aqoonyahanka dhalinyarada reer badanna weydiiyo maxaa isku haystaan idinkii dowladda federaalka goorma coloodeen wiilkii reer Puntland ee hankiisa u ahaa fiila Soomaaliya inuu tago ama ra'iisul wasaaraha uu noqdo muxuu dowladda Soomaaliya ula dagaalamayaa maanta maxaa idin dhex maray yaa isku kindiray yaa idin hoosgeeyay goosatada limaada waa liidarka hogaaminaya bulshada ayaa bulshada u jeexay wadada ay marayso sida ay u fekerayso sida ay u hadlayso sida ay u soconayso iyo waxa ay higsanayso yani jahada ay u socoto iyo xawaaraha ay ku socotaa waxay tilmaamaan ninka hogaaminaya maanta mid labaad Puntland baad nacab tahay waa eray aad raqiis u ah Puntland baad nacab tahay waa raqiis war Puntland marna waa dhalasho marna waa dhul anu reer Garowe baan Puntland da magac cid loo bixiyo waa garanaysaan ضعيفنما إذا كنت هاي أنت دود ويدين إن أترهدان بودلان بالنابي أوي بودلان أوي كواليتي جدي ما أختهين ما أنت سعيد عبد الله الدين اللي دورنا أو إن الديانة أي تهتمين إن أنا الله يكون هذه إن دين اللي دورته وأنا الهاويل ير أو عيد كلا أشغيا إلهي نجبت بالي ما أختهين دني وح فكر أنا إن كايسن ما أختهين دني نلحق قاله إنه أوشيء سنة كي قدم بي والله العظيم إمارات بقول أقول هي أمر كي نهي جاسية سمعنا بالله الشينية حق الآذية عرقاب الآذية وأمر وحبا يسوقكم لها بدلان بعد نعبت هاي وروح حكمت معها بدلان jiritaankeedu muqaddas weeye Garowe xabadu maalintii ay ka bilaabatay iyadoo laascaanood ka socota waxaan idhi xabada Garowe ka bilaabatay way nagaga khatar badan tahay waana ka xun tahay laascaanood ka socota marka xigmad ma aha reer fulaan baad nacab tahay anigu waxaan wax ku dhisaa mabaadi weeye dadkii Puntland ahaa ee aqoonyahanka ahaa ee ammaanada iyo xukunka saaxiibka u ahaa waxay fogaadeen oo wadankani gacanta uu ka baxay markii talada Puntland iyo doorashadeeda laaluushku uu go'aamiyay markay culimadu daawadeen shalay waad maqlayseen Sheekh Maxamed oo Yuusuf Sheekh albaladkii Garowe dhisaynka Garowe ay u taalo waa nimanka aan kula taliyay war waxa sameeysan booliis federaal ah maamul goboleed kasta waxaad ka soo qaadaan 25 wiil oo jaamacadaha ka baxay kadibna boolis ka dhiga saldhigyada caasimadda Garowe wada geeya qof kasta oo Soomaaliyeed uu soo aaminaya magaaladan habar gidir iyo murursada iyo abgaal baa soo degaya qabyaalada Soomaalida ka faa'iideysta maxkamadahana iska hagaajiya war waxaa nimankan kula talinayay in caruur la soo furo Puntland buu nacab yahay hadana iska xaalasiinaya ma garanay cid xaal laga siinaysa qodobka malaha waan ku dheeraaday talada Puntland waxay u baahan tahay badbaado Puntland badbaaday u baahan tahay lamana rabo in lagu eegto wadada ay ku socoto culimada khaasatan reer Puntland guud ahaan Soomaali Sheekh Maxamed oo Yuusuf garab siiya runta uu ka hadlayna ku garab siiya cadaaladda uu tilmaamayna ku garab siiya doorkii culimada maqan oo doorkii aqoonyahanka maqan Sheekh Maxamed oo Yuusuf kaligii yaanu noqon ilaahay shariicadiisii baa la diiday waxaana diiday madaxdeena waa sax shisheeya talgeeni gacanta u galay waa sax dalkii loo dhaariyay iyagii baa kala goynaya waa sax ma Puntland buu nacab yahay Sheekh Maxamed oo Yuusuf Sheekh Cabdi Xirsi xafidahullah ma Puntland buu nacab yahay war dhulkan waan jecelnahay waana dhulka Soomaaliya ugu istiraatiijisan uguna quruxda badan uguna wanaagsan aaway madaxdiisii nin kasta oo meesha la kana muxuu xamal ugu socdaa alaayat hal dhalinyarada waa ku fashilanteen inaad hagtaan oo tawjiihisaan oo wadada ay wanaagsan u tilmaantaan kabtan caduun baa idinkaga filan amaan siiya qodobka ninka la yiraahdo kabtan caduun halkaas baan kaga tagayaa
iyo Puntland baad nacab tahay nabadda ceerigaabo baan kelmad ka odhanayaa horta nimay ahaw nin la odhan jiray nin la dhahdo cabdigood baa berigii tiifiyada Soomaalida soo baxeen buu barnaamij wal hadda barnaamijka ma xasuusto marka waxba ka yaabiyay mogta marka wuxuu yiri maalin buu wuxuu aniga maskaxdaydan yiri waa wareertay waa tawakhlay buu maskaxdayda waxaan idin sheegaya reer Sheekh Isxaaq nimanka la yiraahdo dadka Soomaalida ugu quality wanaagsan way nin aqoonyahan oo maalin sharaxay wuxuu yiri inay naga go'aan ma aqbalayno maxaa yeelay buu yiri Soomaalida kale waa ceyshkii iyaguna waa milixdii buu cunto aan milixdii ma cuni karto waan rumaysanahay wallahi alcadiim qaraabo badan iyo saaxiibo badan oo kale laakiin aniga wax iraadeeyay baa jira dadka laakiin aan ila dareensanay war nimankani wadanka way kala goynayaan hadday laascaano degaan iyo hadday ceerigaabo qaataan iyo hadday boosaaso qaataan iyo hadday muqdisho qaataan iyo hadday taleex qaataan wallahi alcadiim oo ay Soomaali caadi ahaanayaan I don't care war nimankani wadanka way kala goynayaan war nimankani waxay ehel ka dhigteen intii Soomaalida cadawga u ahayd war nimankani waxay dhibsanayaan wixii taariikh ummadda Soomaaliyeed ay lahayd war nimankani waxay qorayaan beejaj cusub oo islaamka iyo Soomaalinimada looga fogaado war nimankan khatarta ka soo foolay mid easy ma aha anu dareenkaasan qaba gulufka iyo geerida jirta iyo galada yeedhaysa waxaa gumcu la shaamayo iyo guuxa dan waayay gardarrada sokeeyaha xumaan la isku garabsiiyo garabsiga shisheeyaha amxaar guudka lagu qaato badeennoo la gado iyo dhulkeennoo la kala gooyo Soomaalida gumaynteeda iyo eedu kala geynta niman baa guddoonsaday inay sharaf ku gaadhaan war anigu waxaan arkayo dadku ma arkayaan miya hadday nimankani ka tanaasulayaan gooni ogoosatada waagii Cabdiweli Gaas Puntland loo doortay waxaanu sheekaysanay nimo dhalinyaro ah oo reer Puntland markaas waxaan ku namayo ka warrama ninkan hadduu Hargeysa intuu ka dego uu siiraanyo ku yiraahdo adeer soo kan dar intan soo kan darbax oo halka dawlad Soomaaliyeed aynu ka aasno oo hadhowna cidii in aqbashan soo kaxaysan war nimankaas hadday niman islaama oo Ilaahay iyo rasuulkiisa rumaysan iyo Soomaalinimada noqonaya kala goynta wadanka iyo garabsiga shisheeyahana ay ka tanaasulayaan aniga walaalahay way rasuulku sallallahu alayhi wa sallam wuxuu sheegay caloosha saafida ah in janno lagu mutaysto ma rumaysanaysaan anigu inaan rajo badan ka leeyahay cibaadada noocaas wallahi alcadiim ma seexdo cid aan caloosha wax uga haya laakiin warwarka aan qabaa waxa weeyaan waa mustaqbalka iyo future-ka dhulkeena iyo dadkeena xagay nimankani ina ku wadaan waa maxay waxay damacsan yihiin maxay taariikhdeena iyo jiritaankeena ku diideen maxay dhulkeena u kala goynayaan maxay inoo daba wadaan isticmaar aynu ka qaadanay mar hore xorriyad maxay inoo xasuusanayaan naftii iyo maalkii aynu bixinay maxay amxaaro u walaashanayaan aynu ognahay waxay nala damacsan tahay maxay baddeena u iibinayaan maxay u leeyihiin Israa'iil baa wada dhalanay adduunka miyaan laga tegayn dadka muslim miyaanay ahayn miyaanay aakhiro rumaysayn dadka war anigu waa wareeray halkii ninkii la odhan jiray Cabdigood baan taagnahay saaka finally nimanka warsangeli ee uu hogaaminayo Suldaan Saciid oo la ceergaabay ku socdaan waa abhinaya ilaahay rasuulkiisa hadda taqaaniin oo niman islaam ah tihiin halkaan nabad ma taalo gobolkiina dhibaatada ka jirtana waa la socotaan daawaca iyo baahida dawlad Soomaaliyeed u qabtaanna waa ogtihiin haddaydan guryihiina joogayn oo aad aadaysaan meel aadaysaan Xasan Sheekh hadduu laascaanood yimaado Xasan Sheekh u taga caaqil Cumar Cabdi Ibraahim meel ku soo ogaada adduunka waa laga tegayaa dhegta haddii la gooyana daloolka hadha islaam haddaad tihiin ilaahay aad taqaaniin
rasuulkiisa taqaaniin ceerigaaba nabad ma taalo nabadda ceerigaabana nimanka muuse ismaaciil ee degan ee deegaanka wax ka degan bay ka go'daa iyaga nabadda ama dadka ugu yeedhaya ama ceerigaaba ku raaxaysanaya in lagu duulana anigu ma qabo dadka in la dulaysto akhlaaqdooda iyo taariikhdooda iyo magacooda la bedelana waxa ka wanaagsan inay dhulka lumiyaan example waxa idinku ah reer Gaza waxa ay sameynayaan warnamankaasi calankii Soomaaliya ay bedeleen xuduudii bay bedeleen aqligii iyo caqiidadii ummadda Soomaaliyeed bay bedeleen taariikhdii bay bedelayaan waxa